السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ku xiran janaalka mar kale soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin maanta waa sabti waana 12 bisha 7 ee July sanadka 2026 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago haweeney Soomaali ah iyo mid cadaan ah oo qirtay dambiyo federaal ah oo la xiriira musuqmaasuqii daykerka gobolka Minnesota haddaba dambiyadan ay qirteen labadan dumarka oo midna Soomaali ay tahay midna cadaanka ay tahay maxay yihiin maxaasal lagu eedeynayay dhinaca daykerka musuqmaasuqa la xiriira waan idin la wadaagaya wiil yar oo 8 jir ah oo Soomaali ah oo shalay gaari uu ku dilay isagoo electric scooter wata magaalada Brooklyn Park ee gobolka Minnesota waan idin la wadaagaya muxuu yahay dardaaranka madaxweyne Trump uu qoray hadii lacala ay dhinto Iran ay disho sida isagu uu sheegayo muxuu ku amray ciidamada Mareykanka talaabooyinka ama talooyinka la taliyaashiisa uu siiyayna maxay yihiin maxay ahaayeen sidoo kale bustooladihii madaxweynaha dalka Turkiga uu u hadiyadeeyay madaxdii ka soo qayb gashay shirkii NATO ilaa haddana maxaa laga og yahayna waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada haddii aan ku bilaabo bishii December ee dhamaadkii sanadkii hore 2025 markii wiilkii cadaanka ee cusuriga ahaa Nick Charlie inta uu daykeera Soomaaliya tagay uu yiri halkan waa iska xiran yihiin oo wax caruura kuma sugna lacagna waa lagu qaataa markaas kadib in la bilaabay baaritaano la xiriira daykeerada gobolka Minnesota kuwa fara badanna lagu helay in ay dambiye galeen musuqmaasuq la xiriira kuwana waxba lagu waayay marka haweeneydii ugu horeysay ee Soomaaliya oo dacwad musuqmaasuq oo la xiriirto daykeerada lagu soo oogay Fahima Maxamuud oo 50 jir ah isla markaana bishii February ee labaad xirtay daykerkeedii iyadoo tikid uu u jiran yahay oo London u socotana FBI-da Mareykanku ay soo xireen ayaa Khamiistii waxa ay qiratay dambi ah in ay dawladda khiyaantay isla markaana laba barnaamij oo federaal ah ay musuqmaasuqday haweeneydan la yiraahdo Fahima Maxamuud ayaa waxa ay sheegtay in aysan dhammaan waxyaabaha lagu eedeynayo aysan jirin wax kasta oo ay qabatayna aysan musuqmaasuqin laakiin waxa ay sheegtay in uu musuqmaasuq dhankeeda uu jiray waxana Fahima Maxamuud sidoo kale la sheegay in sanadkii la soo dhaafay 2025 lacagta ugu badan ee daykeerada lagu qaatay ay iyadu qaadatay oo 3.7 milyan ayaa daykerka ay ku qaadatay haweeneydan marka waxyaabaha lagu haystay oo dacwadahan lagu soo oogay ayaa waxa ay yihiin waxa jirta waalidiinta low income-ka ama dhaqaalahoodu uu hooseeyo marka caruurta daykerka ay ka diiwaan gelinayaan lacag laga qaado oo la yiraahdo copay lacagtaasi marka waxay u suura gelinaysaa in inta marka diiwaan gelintaasi wixii ka dambeeya waalidiintaasi caruurta si free ah ay daykerka ay ku geystaan marka waxa ay been ka sheegtay waxyaabaha lagu haystay waxa kamid ah Fahima in ay tiri lacagtaasi waan ka qaaday waalidiinta laakiin waalidiintii ay baarayaasha u sheegeen in wax lacag ah aysan ka qaadin arinta lagu haystay Fahima intaasi ayay ahayd marka Khamiistii ayaa maxkamadda federaalka ay Fahima timid iyada iyo waliba qareenkeeda waxana ay ku doodayeen inay hayaan rasiidyo cadeynaya in daykerkeeda oo la yiraahdo Future Leaders Early Learning Center in caruur ay ka diiwaan gashanayeen arintaas iyada lagu mahaysto laakiin waxa lagu haystay waxay tahay beenta ay dawladda u sheegtay si lacagtaasi ay dawladda ay uga hesho oo daykerkeeda ay ugu qaadato marka waxa ay qiratay inay dawladda khiyaantay isla markaana musuqmaasuqaasi ay sameysay waxana lacagta ay heshay lagu sheegay 4.63 milyan lacag gaaraysa ama 4.6 milyan lacag ka badan ayay heshay oo ay daykerka ay ku qaadatay Fahima sidoo kale waxyaabaha lagu haystay waxa kamid ah inay ku lug lahayd kiiskii Feeding Our Future oo ay sheegtay in ilaa iyo 60,000 oo cunto ah ay bixinaysay isla markaana bil kasta ee caruurta daykerkeeda ay siinaysay marka waxa ay ku qaadatay lacag gaaraysa ilaa iyo 850,000 oo dollar bishii July ee sanadkii 2021 lacagtaasi waxa la yiri marka real estate ama guryo ayay ku iibsatay meesha ay ka iibsatay walow aan la sheegin marka waxa jirtay sidoo kale company kale oo dhinaca autism-ka caruurta la xanuunsan qaba ayay lahayd oo la yiraahdo Minneapolis Autism Center isagana waxa uga soo xarootay lacag 3.1 milyan oo dollar ah marka waxa la leeyahay lacagahaasi heshay qaarkood xarunteeda autism-ka
ayay gelinaysay sidaas darteed marka fahimo xilliga la xukumayo weli lama shaacin laakiin garsooruhu waxa uu ku xukumi karaa 2 sano ilaa iyo 7 sano inta u dhaxaysa laakiin dacwad oogayaashu waxa ay dalbanayaan 37 bilood ilaa iyo 47 bilood in lagu xukumo oo 3 ilaa iyo 5 sano xabsi u dhaxeeya dowladana waxay u soo celinaysaa lacag ka badan 5.5 milyan ayaa fahimay inay dowladda ay u soo celisay ay tahay waxa sidoo kale jirta haweeney cadaan ah oo iyadana la yiraahdo Eileen Martinez oo 3 daycare lahayd in iyaduna qamiistii ay dambigeeda qiratay waxa lagu eedeynayaa haweeneydan in ay qaadatay lacag gaaraysa 426,000 oo dollar bishii May ee sanadkii 2025 3 daycare ayaa waxa ay ku kala lahayd deegaanada gobolka Minnesota oo kala ah Carson, Minnesota, Rochester iyo waliba Ramsey laakiin iyadana waxyaabaha lagu haysto waxa kamid ah in ay sheeganaysay in 23 macallimiin ay daycare-deeda ay joogaan iyadoo arintaasi aysan jirin laakiin 11 qof oo ka shaqeynaysayna lacagaha waa ay kordhisay ay qaadanayeen macnaha lacag aysan iyagu qaadanayn ay dawladda ku jaajgaraysay sidaas darteed ayaa iyaduna qiratay inay musuqmaasuqaasi sameysay iyadana inta lagu xukumi karo waa 22 bilood ilaa iyo 27 bilood oo adigu 2 sano ilaa iyo 3 sano inta u dhaxaysa ayaa lagu xukumi karaa laakiin arinta la yaab kale ayaa waxay tahay markii plea agreement-ga ay qaadanayso qofku markuu doonayo dambigiisa inuu qirto dacwadoogayaasha dhinaca dowladda federaalka ka socda iyo qareenkeeda ayaa wada hadlaya marka hore qofka iyo qareenkiisa ayaa wax ku soo heshiinaya qareenku markaas kadibna waxa uu la tagayaa dacwadoogayaasha marka waxyaabaha ay dowladdu ogolaatay waxa kamid ah in haddii dacwado kale oo federaal oo hadda ku socda haweeneydan cadaanka oo la yiraahdo Eileen Martinez in aan wax dacwadaha oo federaal ah oo kale aan lagu soo oogi karin haweeneydan xitaa haweeneyda ugu quruxda badan Mareykanka ayaa waxay u tartartay sanadkii 2001 markii ay ku soo guuleysatay haweeneyda ugu quruxda badan gobolka North Dakota marka iyaduna hadda dambigeeda ay qiratay xilliga la xukumayana sidoo kale wali lama shaacin labadaasi arrin haddii intaasi aan ka gudbo dhinaca kale magaalada Brooklyn Park ayaa shalay waxa gaari uu ku dilay wiil yar oo la yiraahdo Mucaad Maxamed oo 8 jir ah wiilkan labadii duhurnimo oo shalay ayaa iskuuriska baashan labada lugood leh oo electriga oo korontada ku shaqeysa ayaa isagoo wadada aan ku socdo isla markaana ku wata gurigana u sii socda ayaa gaari pickup truck oo trailer uu ku xiriirsan yahay uu ku dhacay wiilkaasi dhaawac ayaa soo gaaray markii dambana waa uu u geeriyooday sidoo kale darawalkii ku dhuftay gaarigaasi meesha uu shilku ka dhacayna waa Candlewood Drive iyo sidoo kale Brunswick Avenue North oo ku taala Brooklyn Park darawalkii ma uusan ka tagin markii gaariga uu ku dhuftay booliska ayuu wacay 911 intii ay boolisku ka imaanayeen waa uu la joogay marka darawalkii lama xirin laakiin informationkiisa ayaa laga qoray booliska ayaana hadda baaritaan ku wada qofku markuu baaskiil ama scooter wato waxaa loo baahan yahay in wadada meelaha qaar gaarka ah ee loogu talagalay oo calaamadaha baaskiilka ay ku yaalaan uu ku wato laakiin wadada gawaarida ay marayso inaad ku wadato waa qalad marka boolisku waxay baarayaan ma darawalka wiilkan dila ayaa qalad ka lahaa mise wiilkan yar ayaa qalad ka lahaa oo meel aan loogu talagalin scooterkiisa ku watayna baaritaan ay boolisku ay ku sameynayaan walaalkii ka yar oo la yiraahdo Mudassir oo 12 jir ayaa warbaahintu ay wax ka weydiisay waxaanu sheegay inuu aad uga naxay geerida walaalkii aabihii taraagila waayay wiilkan dhintay isagoo 90 mayl jira kulay halka uu maraya lama sheegina ayaa xaaskiisa ay u sheegtay wiilkoodii in gaari uu ku dhacay isla markaana uu geeriyooday marka darawalkii wiilkan dilay maadaama uu la joogay oo uusan meesha ka cararin markii wiilkan uu ku dhacay booliskana uu wacay intii ay boolisku ka imaanayeen uu la joogay isaga lama xirin informationkiisa ayaa laga qoray waana la sii daayay booliskuna hadda baaritaan ayay wadaan waan arki doonaa qaladka cidda yeelata ma wiilka yar ayaa qaladka dusha laga saari doonaa mase darawalka ayaa qaladka dusha laga saari doonaa arrintaasina waynu arki doonaa waxaa shalay soo baxday in madaxweyne Trump uu dardaarmay waxaan ognahay shirkii isbahaysiga NATO madaxweyne Trump diyaaradii cusbeed oo qadar siisay markii uu ku tagay waa kii diyaaradda intuu Ingiriiska u diray tii hore la soo kiciyay ay ka qaaday Turkiga Ingiriiska ay geysay midii cusbeedna Ingiriiska uu ka soo raacay waxa dib laga ogaaday ciidamada ilaaliya madaxweynaha ee Secret Service-ka ay yiraahdeen madaxweyne maadaama Trump intii uu maqnaa dagaalka Iran iyo Mareykanka uu dib u qarxay ma kugu haboona in diyaaradan cusub aad raactaasi oo loo arkayo
qalabka gantaalada difaaci kara in diyaaradan cusub aan lagu xirin iiraanna gantaal waa ay kula soo gaari kartaa sidaas darteed ayaana diyaaradii cusbayd ingiriiska loogu diray marka Trump waxaa la weydiiyey sidoo kale uu wareysi uu siiyey wargeyska New York Times uu sheegay maadaama ay soo baxday warar in sirdoonka Israa'iil ay Mareykanka ku soo wargeliyeen in Iiraan ay doonayso inay Trump ay disho Trump arrintaasi waa uu beeniyay wuxuu yiri Israa'iil waxba nooma soo sheegin laakiin anigu markastaba in muddo ah waxaan ahaa target koobaad oo Iiraan ay doonaysay inay disho marka Trump waa dardaarma ayaa la yiri waraaq ayuu qoray waraaqdaasina waxa uu u dhiibay la taliyaashiisa isla markaana amar ayuu siiyey ciidamada haddii lacala aan dhinto amaba ay wax igu dhacaan Iiraan wuxuu yiri dhulka ha lala simo macnaha wax aan weligood la arkin ha lagu dhigo marka waxaan ognahay hadda 4 bilood ka badan dagaalka Iiraan iyo Mareykanka u dhaxeeya socdo wax kastana Iiraan waa loo adeegsaday marka waxa kaliya oo harsan waxa yihiin nuclear ayuu doonayaa inuu Mareykanku uu Iiraan u isticmaalo kulay lama oga marka Trump waxa leeyahay tilaabooyinkaasi cad ayuu ka dardaarmay oo waraaqdaasi ayuu qoray bartiisa True Socialka ayaa xalay waxa uu ku soo qoray qoraalkan uu leeyahay ilaa iyo 1,000 gantaal ayaa la cabeeyay isla markaana waxa ay ku sii jeedaan Iiraan kuwa kalena oo kumanaan ahna way ku xigi doonaan haddii Iiraan ay idisho amaba ay isku daydo in ay idisho sidaas darteed wuxuu yiri amradaasi horeyb ayaanba u bixiyo militariga ayaan siiyey waa ayna diyaarsan yihiin wayna awoodaan inay hal sano dagaalamaan haddii loo baahdana waa la kordhin karaa waqtigaasi marka waxa uu yiri waxaan amar ku bixiyey in gabi ahaanba dhulka lala simo lana burburiyo dhinac kasta oo Iiraan ah waxa uu ku soo gabagabeeyay laakiin ammaan ilaah ayay u sugnaatay marka Trump qaatumada miyuu ku dhiman rabaa ma ogi kulay waxa uu ku soo gabagabeeyay waa markii labaad oo aan filayaa bartiisa True Socialka uu ku soo qoro Praise be to Allah ammaan ilaah ayay u sugnaatay kadibna magaciisa ayuu ku soo gabagabeeyay marka arrintaasina sidoo kale waa ay jirtaa oo Trump inuu dardaarmay uu yiri lacala haddii aan dhinto xitaa haddii tii Allah ii timaado ayuu ka wadaa Iiraan ayaa i dishay wasooladii marka madaxweynaha dalka Turkiga uu hadidiyay madaxda NATO ee shirka isbahaysiga NATO Ankara uga qayb galay ayaa warbixin ay ka soo baxayaan madaxda qaarkood horta la yaab ayay ku noqotay kuwana waa ay ba argagaxeenba qaarna safaaradahooda Ankara ayay uga tageen waxay yiraahdeen waa sharci darro inaan wadamadeena bastooladahan dib ugu laabano bastooladahan waxa magacooda lagu sheegay in la yiraahdo Gumsai 357 Magnum waana bastoolad la xabad qaada waxaana sidoo kale sameysay shirkadda la yiraahdo MKE sanadkii 1990 marka qoraal waxaa loo raaciyay afka Turkiga ku qoran iyo waliba English marka madaxda loo hadiyadeynayay waxaana sidoo kale ku sawiran calanka Turkiga iyo loogada wadanka isbahaysiga NATO aan iraade waa bastoolad gacmeed oo ah tii ugu horeysay oo dalka Turkiga ay sameeyaan marka waxa uu tusayay madaxweynaha Turkiga in ay hub samaysan karaan kulay ilaa hadda ujeedada uu ka lahaa lama ogo English iyo af Turki ayaana qoraalka ku dhex jiray hadiyadaasi in sidoo kalena ku qornaa bastoolada oo gaar ah lixda xabadood iyo qoraalkaasi ayaana meel lagu riday marka madax fara badan arrintaasi la yaab ay ku noqotay oo midka Ingiriiska kan Canada midka Sweden kan sidoo kale Belgium midka Lithuania Trump isagoo uu iska soo qaatay marka arrintan waxay noqon kartaa madaxda hubka waa laga ilaaliyaa maxaa yeelay wadan dhan ayay maamulayaan caalamka ayayna la macaamilayaan stresskooda ayaa badan ka waran haddii qofka isagoo qori loo dhiibo bastoolad iska haysto oo isku dhuftooba isdilo arrintaasina saameyn ayaa ka dhalan karta marka bastooladahaasi oo madaxweynaha Turkiga u hadiyeeyay madaxda isbahaysiga NATO arrintaasi qaarkood la yaab ma aysan la noqon sida Trump oo kale hubka Mareykanka caadi ayuu ka yahay iska soo qaatay laakiin madax fara badan wadankooda sharci darro ayay ku tahay hub aan diiwaan gashanayn inay kula soo laabtaan qaarkood waxay noqotay inay yiraahdaan museum ayaan dhigaynaa kuwana safaaradahoodii Ankara ay uga tagaan oo yiraahdaan bal marka hore waa in wadankii aan tagnaa la soo diiwaan geliyaa wadanka saas loo soo geliyaa amaba sidoo kalena inta la soo qaado la kala furfuro madxafyada la dhigaa si halkaasi loogu daawado arrintaasina intaas ayaan ka gudbayaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo